wararka ka imanaya degmada Qansax Dheere ee gobolka Baay ayaa waxa ay ku waramayaan in halkaasi goor lagu qisaasay askari ka tirsan ciidanka booliska maamulka Koonfur Galbeed gaar ahaan Qansax Dheere kaas oo hore dil ugu geystay askari kale oo boolisa guddiga amniga ee degmada Qansax Dheere ee gobolka Baay ayaa waxay soo saareen go'aan xadka lagu oofinayo askarigan booliska kaas oo hore u dilay askari kale waxaana fagaaraha xadka lagu oofinayo askarigan soo buux dhaafiyay shacab fara badan oo ku dhaqan degmada Qansax Dheere kuwaas oo soo daawasho tagay halka xadka lagu oofinayay degmada Qansax Dheere ee gobolka Baay ayaa waxa si buuxda kaga dhaqan galay amar cusub oo soo saaray maamulka Koonfur Galbeed kaas oo ahaa in ruux kala dila la qisaaso isla markaana la waafajiyo shariicada islaamka xadkan lagu oofiyay askariga ka tirsan ciidanka booliska maamulka Koonfur Galbeed ayaa waxa si weyn u soo dhaweeyay dadka ku dhaqan degmadaasi iyagoo arintaas ku tilmaamay mid boogaadin mudan maadaama qofkii qof dilay asagana la dilayo deegaanada maamulka Koonfur Galbeed ayaa waxa marar fara badan ka dhaca dilal qorshaysan kuwaas ay isku geystaan askarta ka wada tirsan ciidanka maamulka Koonfur Galbeed iyo sidoo kale dadka shacabka ee ku dhaqan deegaanadaasi hase sharcigan uu soo saaray maamulka Koonfur Galbeed ayaa waxa uu si buuxda kaga dhaqan galay degmada Qansax Dheere ee gobolka Baay iyadoo maanta halkaas lagu oofiyay askari booliska kaas oo hore dil bareer ugu geystay askari kale oo booliska